tartanka ciyaaraha gobolada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jigjiga. tartankani oo ahaa mid ay ku loolamayeen 9 gobol ee dowlad deegaanka Soomaalidu ka kooban yahay ayaa waxa ugu dambeystii isugu soo baxay ciyaarta kama dambaysta ee koobka gobolada Qorraxay iyo Afdheer, kuwaasi oo ciyaartii kama dambaystii ay ku dhaxmartay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga. waxayna labadan kooxood halkaasi ku soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo ay koox waliba kooxda kala rabtay in ay kaga gacan sareyso, iyadoo sidoo kalena ay taageerayaasha labada dhinac buux dhaafiyeen garoonka iyo daawadayaal kale. haddaba ciyaartani oo 90 daqiiqo ee loogu talagalay ayaa waxa ay ku dhamaatay hal gool oo labada kooxood kala keensadeen, waxayna tani sababtay in ugu dambeystii loo dhigo kooxahan gool kulaaga marigoorayaal, waxayna halkaa 4-3 guushu ku raacday kooxda gobolka Qorraxay oo ku hanatay koobkii ciyaaraha. xafladda tartankani oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay wasiirka madaxtooyada mudane Cabdicasiis Maxamed iyo madaxa komishinka ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Bila Xasan, waxaana halkaa ka hadlay wasiirka madaxtooyada mudane Cabdicasiis Maxamed kaasi oo sheegay in ciyaarahan qayb weyn ka ciyaarayaan isdhexgalka kooxahani. tartankan ciyaaraha waa marihii ka dhashay maanta guusha aynu fadhan ciyaaraha isboortiga dowladda deegaanka Soomaalida oo runtii isfiraabreebkoodu uu ka soo bilowday heer qabalo ilaa heer tuulo, heer degmo, heer gobol, maantana aynu heer deegaan u taaganahay. labadan kooxood maanta isugu yimid finaalka oo aan rajeynayno in si maaragtay farxad leh oo wanaag iyo isbarasho ay ka dhaxaysa in ay ku soo gabagaboobeen waa mid ka turjumaysa dadaalka loo galay kaalinta dhalinyarta ee isboortiga sidii horumar waara looga gaari lahaa. mana noqon doono ciyaartani tii koobaad amaba koobkii koobnaad. hadda ka hor way jirtay koob noocana oo deegaanka Soomaalida la qabtay, runtiina maantana waxay la mid tahay tartamadii nooca ahaa ee deegaanka sida joogtada loo soo qabanayay. sidoo kale mudane Maxamed Bila Xasan madaxa komishinka ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in komishinka ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ku hawlan yahay sidii uu meel sare u gaarsiin lahaa ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna tilmaamay in ciyaarahan qayb ka yihiin dadaalada uu xafiisku ku hiigsanayo kamid dhalinta qorshaha u yaala. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo dareenkayguna aad buu magaranaysaa u taagan yahay, shucuurteeduna aad bay u fiican tahay, waayo magaranaysaa aan waxaan ku taamayay inay isku yimaadeen gobolada deegaanka Soomaalida ama magaranaysaa hadafka dawladda wuxuu yahay magaranaysaa inaan hirgeliyo kala hadda ayaan ku taamayay. hadafka dawladuna oo ah magaranaysaa inaan bulshadeena aan horumar gaarsiino goobaha kala duwan kana gaarsiino dhinacyada kala duwan sida magaranaysaa biyaha, waxbarashada, caafimaadka aan ka gaarsiino iyo magaranaysaa qaybta isboortiga. Nuur Xuseen, telefishinka caalamiga Soomaali Saad, magaalada Jigjiga.